dagaalkii abid ugu adkaa ee xagga raabka ah oo dhex maraya raabarka weyn ee alfanaan ilka case iyo da'yarka muddooyinka dambe saaxada fanka qabsaday ee Sharma Boy haddaba suugaan raab ah ayay labaduba hawada isku marsiinayaan maxay tahay xiisadan cirka isku sii shareeraysa ee u dhaxaysa ilka case qays iyo Sharma Boy warbixinteenan ayaan ku bilaabi doonaa xogo badan oo ka qarsoon daawade ee muuqaalka like saar lana wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade waxaa soo shaac baxay muddooyinkan dambe dagaal xagga fanka ah oo u dhaxeeya labada fanaan ee kala ah ilka case qays iyo Sharma Boy iyadoona hawada ay isku marsiinayaan suugaan kulul oo karbaash ah aan ku horeyno Sharma Boy ayaa bilaabay oo ku riday ilka case qays madfac inaba aan caadi ahayn odore waxa taayide noloshada dhanno dadan mela ku dhimo ordaadan am sultan horan ku irideeno dadan kamela fan iga dhaafsan waxa cabta cabitaan kadib ismo dacaan rabkiya ku bare hortiya ku qore dad kugu dare mi macalinkime ya kala de maskaxda waan baara everyday xuseen gaduudo saxiibkume wax u sheegtay geesta kale ilka case qays oo lagu naanayso boqorka raabka ayaa isna gantaal karbaash ah hawada u mariyay Sharma Boy dhurahangadu hortaya ibara wasir bana horta maduu cilba dalil bana horta ma sheegaba degdeg bana ma dhashidur waaga ma durbaaxa garaca ha ooye maska dhajiga masgaluumiya dagaba maraxa ee madhoohana burjigayga tab reer aaga xaalku markii uu halkaa marayo karbaashka labada fanaan ayaa cirka isku sii shareeray oo Sharma Boy ayaa soo qaaday hees kale oo u eg in uu ku karbaashayo ilka case qays iswalwal ama igu dal ma baeega gadaal waxaan wadaa dadaal ha igu lumin dabaal iga marbal yo iga marbal muusigaygu waa sultaan waxaan la tartami wow hey dagol waxaan dhashay gool ma ogoli dool shacabka iyiri eri ari camal buri of wuu soo uri afkiisa guri waa duli waryaa muli muli qashinka qaad guli amarka fuli haddii kale waa ku mudiyow dhinaca kale ilka case qays oo Soomaalidu ay si aada u yaqaanaan karbaashkiisa ayaa soo riday hees uu si toos ugu karbaashayo alfanaan Sharma Boy heesta oo uu magac uga dhigay nafaqayso erayada heestana waxaa ka mid ahaa yaadu faanaysa wariya ilka joogso wariya guguuro wariya nafaqayso wariya mamadu xudibaaciya miina miya kashimalaa miya leefaayo miya sitay manooto kabalyeeri miya dhanka bidix dhanka milig horobolod miya xaabsada miya asturaayo miya ninka sheeg miya miiraayo miya dibu deg baaster yaa ku dhalay baaster ii qaba shaarka balidaawa baaster tarbuunka olofuul balidaawa baaster qaybta dambe ee heesta ayuu geliyey iyada oo uu socdo muusiga hadal caadi ah oo fanaankan markii uu wax karbaashayo lagu yaqaano waraahulafow filibiina kaa dhigaa filibiin afartan beri tabliiqaan kuu diraa tabliiq ugu dambeyntii alfanaan Sharma Boy ayaa isna hees muuqaala soo sameeyay oo isna uu ku karbaashayo ilka case qays yacqub Virginia adma basan igaloy dadkaadishe maanta anaa shida xagga bagashe marka maqasho meesha ku dhashay qalad baad gashay beertaana anaa fasha magashe gooshaan kaa dhashay yow gooshaan kaa dhashay xagga bagashe marka maqasho meesha ku dhashay qalad baad gashay beertaana anaa fasha magashe gooshaan kaa dhashay yow gooshaan kaa dhashay no masir iga hore beer haddii kale hoofe soo bareer ama iska dareer ma waxaa tahay waryaa geed mareer afaga waxa ka da'aya waa dhabeer waa dhareer saamaynta social mediaha iyo labadan fanaan ayaa haysta baraha bulshada oo inaba aan caadi ahayn oo social mediaha ayaa si aad looga hadalhayaa daawad haddaba mucjisadii raabka ayaa ka taagan baraha bulshada daawade ee aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga muuqaalkana like saar ku mahadsanid daawade